waxaa maanta magaalada Buuhoole ee xarunta gobolka Cayn soo dhaweyn qaran loogu sameeyay ardaydii ugu dambeysay ee ka imaanaysay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool kuwaasi oo galaya imtixaanaadka maamulka Khaatume State of Soomaaliya ardaydan ayaa meel ka baxsan magaalada waxaa kaga hortagay maamulka gobolka Cayn ururka Khaatume daryeel dadkii dalka iyo waliba dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Buuhoole ardaydan oo nasiina ku qaatay riiga magaalada Buuhoole ayaa wax ka weydiiyay dareenkooda maanta waxaana hadaladoodii kamid ahaa waxaan aad ugu maqnaqaynay baabulishka ku nool gobolka Cayn ee maamulka Khaatume State Soomaaliya iyadoo halkaan maanta ay wariyaashu si wacan ugu soo dhaweeyeen waxaana mahad gaar u jeediyay gabdhaha dhigtay sekretariyada maamulka Khaatume State Soomaaliya iyagu lafdhabarta koobaad ee hawshan aanu hadda ugu guda jiraa Soomaaliya ma kana qaybsatay waa mid hadii la hargeysa buucna waa dir wax jira ma jira dadka yar belu sheegay Soomaaliyana waa hal jiro jiro la oo qaybsato السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacay waa Cabdullaahi Cabdullaahi salaamaya dhammaan ummadda Soomaaliyeed siba ummadda maamulka Khaatume State of Soomaaliya aad iyo aad baan ugu faraxsanahay soo dhaweyntan aan soo marnay dhul badan sida Balcad Buuhoole iyo dalkan iyo dhul lamida aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay imtixaankayaga nabadgelyo iyo bashwash iyo barwaaqo Ilaahay nala kulmiyay aan si guul iyo wanaag iyo farxad iyo waji furnaan ku soo galanay imtixaanka فرحة بالمشاعر هذه أربعة فرسنا الصحافة السبعة هذه أربعة فرسنا ونصلام يا سلام قاري والسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان نفسي سلام بقى قراءات السلام ما خاطر الصوماليا أو السلام يا ولكن المسؤولين شرفت لهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. intaasi kadib ayaa ardaydu waxay u soo dhaqaaqeen dhanka magaalada Buuhoole ee xarunta gobolka Cayn iyadoo ay galbinayeen gaadiid aad u tiro badan isla markaana waxay socod dheer ku soo mareen dhammaan qaybaha ay ka kooban tahay magaalada Buuhoole ee xarunta gobolka Cayn ugu dambeyntiina waxaa soo dhaweyn qaran oo ballaaran loogu sameeyay fagaaraha secondary-ga weyn ee magaalada Buuhoole waxaana halkaasi ka hadlay mas'uuliyiinta maamulka Khaatume State ardayda gobolka Sool ardayda gobolka Cayn iyo waliba dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada madashaasi ka soo qayb galay ugu horeyn ayaa waxaa hadalka qaatay maayarka degmada Buuhoole Kays Maxamed Xaaji Cali faraha badan ee ka jira magaalada Laascaanood ama iyaga laftigooda lagula kacayo ardaydaas waxay soo haasadeen in ay halkaa ka soo hajiraan waxaa soo tabantaabiyey oo gacan weyn ka gaystay qaar saraakiishooda Somaliland iyo madaxda gobolka Sool ee Somaliland ka tirsan oo annaga halkaa noo joogo oo annagu ognahay si nabadgelyo ahna way nagu soo gaadheen ardayda waxaa loo diyaariyey imtixaan sanqaraysina oo maamul goboleedka Khaatume uu muddo dheer gacanta ku hayo ka soo shaqaynayay imtixaan sanqaraysina ayaa maamul goboleedka Khaatume ardaydan u diyaariyey waxayna fadhiisan doonaan haddii ay ka dhibo 8 subaxnimo ee bishan ku jira ay 20 ka tahay waxaan ilaahay ka rajaynayaa in ayna u darsanin kii hore ee macmalka ahaa ee qabiilka iyo qoyska ku salaysnaa ee tacaddugu dusha ka saaraa ee meelaha kale looga soo samayn jiray waxaan ku rajo weynahay in ay wax badan ka faa'iidi doonaan kanisanaa Cabdiraxmaan Maxamed Axmed gudoomiyaha gobolka Cayn ee dowlad goboleedka Khaatume State of Soomaaliya ayaa isna madasha soo dhaweynta khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyay salaanka bacdi waxaan u mahad celinayaa boqolkiiba boqol oo mudan mahad dhammaanteed mahadda alle ka bacdi ardada ka dhiidhiiday ciriiriga iyo cunaqabataynta iyo magaranaysaa midabta koorka lagu hayo ee ka timid gobolka Laascaanood gobolka Sool ardada aad baan ugu hambalyeynaya u salaamaya ugu mahadnaqaya waxaan u hambalyeynaa dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed ee taageersan ee ku faraxsan ee raacsan maamulka Khaatume State of Soomaaliya
waxaannu kaloo u hambalyaynaynaa bulshaweynta hooyooyinka dhallinyarada ardada sida qiimaha iyo qaayaha badan u soo dhowaysay walaaladooda uga soo haajiray gobolka Sool iyagoo ka digigixday ama ka ma garanaysaa dhiigoodu ka kacay raqabataynta iyo dhibaatooyinka ka soo gaaraya maamulka SNM ee Silaanyo waxaanu si diiran u soo dhawaynaynaa waan ugu diyaarinay imtixaanaadka sarlayska ah ay ku geli lahaayeen gobolkan Cayn ee Khaatuma State ay qaadayso macallimiintii imtixaanaadkina loo diyaariyay oo laga shaqeynayay muddo waxaan u diyaarinay guryihii cuntadii meel wax alaale wixii agabkii ay macnaha ay maaragtay kaabayaasha u noqon lahaa beerihii dalxiiska dhammaan waanu u diyaarinay haddii aan bukuurnay ardada 180 kaartay ah na soo gaadhay maanta oo imtixaankoodu bilaabanayo Axmed Cabdi Guray oo ka mid ah qurba joogta deegaanada Khaatuma State sidoo kalena qayb ka ah ganacsatada gobolka Cayn ayaa isna halkaasi hadal kooban ka jeediyay ومعان شعره وتلفزيون كصوماليلاند حالي ka hadlay معان شعشاس oo ku dhaqma wax been ah oo aan jirin saxaafadana la yimaada horta waa ceeb caleeg in saxaafadu hadday miidiyii tahay iyo hadday maamulka tahayba inay ka xishoodaan wax aan sal iyo raad lahayn oo beena in laga sii daayo taas waxaan leeyahay saxaafadu marka waxaasoo kala dhaca waa inay diigareeyaan masaxaan wixii been ah ee dadkaas maamulka Soomaali ka cadhooday waxaan ilaahay ka rajaynayaa inay qulubtooda hagaajiyo waa kuwa ismadii la dhaafay ay Soomaali way ku soo noqdaan waxaan kaliya ku khatimayaa macaan jeceshu waa waqtigii ugu guudarada badnaa ee ay joogaan waqtigoodii waa dhammaaday Soomaaliya waa israacday Soomaaliya ka mid tahay maanta iyadoo calankii xidigta lahaa sidabay xamar ku sii socdaan welcome back Soomaaliya qarankii waa ku soo noqotay Cabdiraxiin Saleebaan Faarax oo ku hadlayay afayeenka ardayda dugsiyada sare ee deegaanada Khaatuma State ayaa isna halkaasi hadal kooban ka jeediyay ardayda reer Laascaanood ee foonfoorada ee nootina martida ah gobolkoodii bay joogaan waxaan leeyahay gacmo furan iyo qalbi furan marka hore ku soo dhawaada inta kadib anigoo ku hadlaya magaca ardayda dugsiyada sare oo dhan ee Khaatumo oo gudidooda guud ee la yiraahdo Kiss Umbrella waxaan leeyahay marka hore wadajir baa lagu qabtay aan iskaashano marka labaad waxaan leeyahay Somaliland wixii xumaa ay idin keeni jirtay qadiyadeenna ku iibsan jiray maaha waxa u darsan doontaan inaad ka raystaan mooyaane qodobkan ku daray waxa weeye anigu hadal ku dheeraan maayo waxaan u jawaabay oo kaliya niman Laascaanood xarig ka hadlayay oo kuwa laalush qaatiyaasha waxaan leeyahay horta nin magaranaysa laalush qaati waa waxa idinka suurageliyay sadooyin xidhan ragga sadooyinka xidhaya ee geeslaantii gabadheeda qabeen xidhaya annaga waxba ka qorimayno horta marka horeba marka dhageysan maayo haddaan isleeyahay buuhooda ardadaas ku gaajoonaysaa iyagaad weydiin doontaan waxay buuhooda kala kulmaan indhihiina idin macallina waxaan u malaynayaa malaha idinka halkaa ku gaajoonayo dee laaluushkeeda ku yaraadeen xaggan kaale alle xaggan u doontaa iminka ardayda heewaas camal qalbi furan iyo gacan furan ugu soo dhaweynayaa magaaladiinii baad joogtaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh laba xubnood oo ka mid ah ardayda gobolka Sool ee sida weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Buuhoodle ayaa si weyn ugu mahad celiyay shacabweynaha magaalada Buuhoodle iyagoo sheegay inay sugayeen soo dhaweyntan iyo wali mid ka sareysa sidoo kale waxay ka hadleen waxyaabaha ay ugu gacan saydeen imtixaanaadkii maamulka Somaliland iyagoo halkaasna ka jeediyay khudbad si aad loola dhacay salaamaya dhamaanba bulshooyinka gobolka Cayn taasoo salaadiin iyo arday iyo madax iyo maamul mid walba ay noo taagan yihiin noogu helayeen waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بعد السلام إلهي باب محد لبادنا وحسينيا بشوينتا gobolka Cayn taasoo dadka yagiya dalka yagiiba oo aanu ku dhaarano markasta aanu meel kasta joogno taasoo maanta nagu soo dhaweysay iyo maalmihii horeba gacmo furan
walaaltinimo wanaag islaamtinimo dadkayagii maamulkayagii dowladayadii mar walba nagu soo dhawaysay aad iyo aad baan idinku mahadinaynaa dhammaantiinba ardayda iyo bulshada iyo maamulka iyo waalidiinta iyo culimada iyo hooyooyinka iyo salaadiinta qof kasta dhalinyarada ururada kubadaha ururada kale maxalliga kuwa dawliga mid kastaaba aad iyo aad baan idinku mahadinaynaa ciidamada qaranka ee qalabka sida ee tan iyo maalintii maalinka maantaaba loo soo dhaweynaya sida gacmo furan ee madaafiicda iyo teedhisabanada iyo nukliyeerka noo ridayay aad bay wada mahadsanyiin dhammaantiin waad wada mahadsantiin salaanka inta mahad ka bacdi waxaan rabaa inaan xoogaa yar ka tiriyo xoogaa yar oo aan idin fahansiiyo ardayda gobolka waxa keenay iyo waxaana soo saaray iyo waxa magaaladayada iyo beydkayada iyo beradayadiiba naga keenay oo noo keenay dalkayaga iyo dadkayaga iyo muxubbadiina jeclayd baan doonaya in xoogaa yar idinka sheego waxaa ka mid ah haddaan nahay ardayda gobolka sool sanadka waxaa ka soo baxaya secondariga 360 arday 360 arday keliya oo imtixaanka Somaliland lagu sheego oo fariisanaya ma jiro taarta ku bishaaraysta waxay u fariisanayaan dhammaanba imtixaanka Khaatume State of Somalia taasoo aanu nagu diyaarisay dowlad wasaaradda Khaatume State of Somalia wixii nagu kalifay inaanu diidnay imtixaanka Somaliland waxaa ka mid ah cadaalad darro imtixaanka Somaliland qeexitaankiisa oo ardayga yar ee cayraba dhigta ee 20 arday ay ku joogaan iyo dhammaan gobolada SSC marka loo eego marka inta ay heestaan imtixaanaadka ka qaadaan waxay yiraahdaan hal ardayba wuxuu helay maalan ba A oo kale ama B minus ayuu helay halka ay yiraahdaan cayrabana waxay haysataa 80 plus oo A gobolada kale ayagu sheegtaan dhammaantood waxaasoo dhan ay yihiin taasi waa mid ku timaada cadaalad darrada imtixaanka Somaliland oo aad ogtiin maalintii tartanka lagu galay Hargeysa ay galeen gobolada ay ku sheegtaan Somaliland oo dhan inay soo laasacaano ay wanka gashay balse ay cadaalad darro ay xaq oo Soomaaliyeed ay dheen Hargeysa oo wanka ka gashay laasacaano tuubay gashay taasina waxay muujinaysaa inay laasacaano ay ahayd arday muhiim ah taasoo runtii aad iyo aad aqoontooda ay wahayd mid xariifa aan lagu tilmaami karin dad aqoontoodu liidato laakiin ay noqotay cadaalad darro imtixaanka ku timaada waa qodobka labaad iskoolarshibada ay ka soo qaadata beesha caalamka ee ay yiraahdaan gobolada aan xukunay ay ka mid yihiin laasacaanood inaysan waxba naga siinin oo ay isku koobaan iyagu oo ay yiraahdaan booski waxaa galaya inay mujaahid cidu ku jihaadeen ilaa caawa ma garanayna meel ka soo jaaday koona taasi waa mid talabaad ashahaadadu maaha ashahaado muctarifa oo la aqoonsan yahay halkaana jigjiga ma gaadho halkaana Jabuuti ma gaadho halkaana Puntland kuwa isku sheega ma gaadho waa warqad foojariya oo ay soo goosteen oo been abuurasha oo farmasiyada lagu iibin karo mararka qaarkood taasi waa mid jirta kale jirta waxa weeye inay gobolada laasacaano ay ka mid tahay Sool oo kale inay u geystaan cadaalad dhibaatooyin fara badan oo ay naga laayeen oo hadda ay nagu jiraan arday fara badan oo jiisa oo ay lugaha ka wada toogteen kuwa ay gacmaha ka wada toogteen kuwa runtii madaxa walaala oo ay maskaxda ka wada toogteen inay macallimiinta ay badna jeelka madheer ay ugu xiran yihiin badna ay ka caydheen magaalada ka musaafuriyeen inay maamulayaasha iskuulka ay madaxa iyo lugaha kaga wada jabiyeen xasuuq ay u geysanayeen shacabka dhammaantood gobolka Sool taas baa loo cuntami weyday inaanu Somaliland waxa isku sheegay maamulkaanu arday u noqono laakiin aanu u noqono arday maamulka loo yaqaan Khaatume State of Somalia dowladdeeda taas ayaa aad iyo aad ugu mahadsantiin dhammaantiin إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إما بعد يا أخواني ويا أخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إنت أكدي ما توحى فرحة وين معه هذانا إذا غيرت قبل كسر جبي هامبا أرضيدا من معاملك عيدا كقارن كخاتم State of Somalia ورد برشلة يجبي هامبا رار قبل كعين ونوصل لوين سيارة إني بفريدين إنك ترانا أقنع مرور بين يهيدات كياجي يدل كياجي هذا ما توحى فرحة معه قابكن أذكر لوجس وشقي يا حفلة القروح دبلن يا أرتاجن لهي كوني يا كوجر هامبالي ألف مبروك. أنت أكيد أنا وهدانا أرضينا يا دليل تقوم كسر وحنا صارنا عدادي سيادوين كاسو نوع تموي هدانا أرضينا يا دليل تقوم كسر وما نزيدن أوكليا عدالة درجة Somaliland أما شوف حتى أسلم كل واحد هاي
Soomaaliya ee aanu hayno dawladdeeda khaatimaysteeda Soomaaliya inta kadib annagu waxaanu nahay dad u dhashay ka dhashay kuna doonaya ahaan doona ahaan jiray khaatimaysteeda Soomaaliya inta kadib waxaan doonayaa inaan halka ka soo jeediyo tixyaroo gaaban oo taabanaysa carqaladaha dhabta ah iyo waxyaabaha aan dhammaan doonayno in aanu maanta bartan ka soo bandhigno khaatima daraadeedaan dugsiyada u aadnaayo dartaaba ku baranaayay dastuurkeeda loo bogay baan u dabaaldegaynaayay dhalin door leh baan nahayo waxaanu doonaynaa dalkayaga inaanu facno diinteeda difaacnaayay nacab uma dulqaadanayne waan isdaafacaynaayay sinjidaan cidi dhalinayo Soomaali kii dhibayo tasaluga noloshiyo in badan sida ku noolaayo sidaayo dalbiyo aniyo kafagaali samihiyo Soomaali diidayo sunniina siisaniyo kafagaali samihiyo gaalka ka dooyeno sahayn ay ku waayeen adiyo jamacada nahayo dhaqan baanu leenahay odinaysa aan shantiyo kooxdeeda sharaf leh شايعي نهايانيو نعم بنتي وخاتمة دلادين abwaan yuusuf soosle oo ka mid ah abwaanada deegaanada Khaatuma State qaybta weyn kaga jira xoreynta deegaanadaasi ayaa madashaasi ka jeediyay gabay ka dhaxeeya dhammaan ummadda Soomaaliyeed isagoo ballan qaaday marka ardaydu ay imtixaanaadka galaan inuu la yeelan doono kulan ballaaran oo uu ugu magac daray maanta iyo ardayda Khaatuma iyo abwaan soosle عين ليدا ما نصدق مدة يقع إلا الله سيدي ثلاثة عيل لو قرر إذا وعلم الآية على الشيء يلا أبتي دواء على السنايين اللي كان بيقان قبل نلوق إيمان عنادين سومالي عين كي تهيبان عيلو قواياي تاريخ دلو عيدة يوئعا والحصايو 20 قرني قاعد يعمل 2000 سنة dadka kale intuu ceeshay buu caadaha amaray cilmiga iyo aqoon koransiga cilmi lagu gaariyay cimrigoodu niman buu ku lumay caado reer hebel cimrigoodu niman buu ku lumay caado reer hebel waxay dunida kaga ceeshayaan waa cajabayay iyagoo ciidiya fadhiyo cuunkii lagu dhaafay oo aanu ceello u qodnayn ciidina u joogin oo ku wada cayriyaan calaf ka dhowrayni ayuunbay caraab ugu jiraan coliya laytaane nin waliba cashiirada xigtuu cadowgii moodaaye sidii cuurba cuur loogu diray way isu cunayaane coomadayaasha iyo kufrigu hay isu celiyeen caqligaa ka suulaya xumaan ma ictiqaadeen caqligaa ka suulaya xumaan ma ictiqaadeene عادي يا سمود كما تدين على الودي عيمتي فرعون يا همان وما حد يستانه عذولها قبابيه ودان عاقل لما دينه عيار يفديد بدلين علماء ديماده عودي يا مريا كما فتين عارك ورك له عسردوغو ان عيبقين ما يعجبيينه عادوين بان لو دقمين عاريه هاي عربك يا دبنا كما خريان عين كنا وعنه iyagoo daliya ciid calankii hoos jooga oo beere kala cayna iyo cuudba lagu siiyey oo aanbad laga ceeshay iyo cali iyo buur waaye ictiraaf ma waayeen sidii caydha falastiine cilaaqaadka duniyadoo dhan baa laga xisaareen haweenka gobolka Cayn ayaa dhankooda suugaan macaan kaga qayb qaadanayay soo dhaweynta qaran ee loo sameeyay ardayda gobolka Sool استرخاء
isku soo wada duuba waxaa soo dhaweyntan loo sameeyay ardayda ka timi magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ee gaadhaysa 180 arday ay ka qayb noqonaysaa isdhexgalka bulshada Khaatumo State ee walaalaha ah iyadoo ay filayeen in sidan loo soo dhaweynayo. Axmed Cabdiqaadir Jabaan Axmed Darwiish TV magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn.